kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan halkani waa raadiyaha Daardheer kusoo dhawaada barnaamijka horumarinta nabadda oo toddobaadkiiba xilligan oo kale aad maqashaan nabadda iyo arrimaha la xiriira ayaan barnaamijka kusoo qaadanaa toddobaadkan barnaamijkeena waxaa marti noogu ah aqoon-yahan Mustafa Warsame Sabriye Mustafa waxa aynu kala sheekeysanay oo aynu falanqeyn guud ku sameynay nabadda iyo doorkeeda ay ku leedahay horumarka bulshada anigoo Cabdahar Garaad Cali ah ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya Liibaan Maxamed Cabdi ayaa ii farsameynaya mar kale ku soo dhawaada barnaamijka horumarinta nabadda ee raadiyaha Daardheer ku jacaro rajaan nusqamayn kuna wilaysi معاني نعودوني نبضي معاني نعودوني قائي برواقة دان مقلب وقبوباي الناصر مانو وهجاك دقيستيال barnaamijkeena horumarinta nabadda ee raadiyaha Daardheer toddobaadkan waxaa marti noogu ah isla markaana barnaamijka nagala qaybgelaya aqoon-yahan iyo qoraa Soomaaliyeed Mustafa Warsame Sabriye oo kamid ah da'yarta reer Galmudug ee maalmihii la soo dhaafo ku sugneed gudaha magaalada Dhuusamareeb iyo Gurceel iyo deegaanada hoos yimaada Mustafa oo muddo ka maqnaa gobolka ayaanu wareysi dheer dhinacyo kala duwan taabanaya la yeeshay waxaana Mustafa isla falanqeynay horumarada ay deegaanada Galmudug ka gaareen nabad dhiska iyo sidoo kale adeegyada dowladnimada waxa uu falanqeyn si rasmi ah ku saleysan xaaladda deegaanka ka bixinaya aqoonyahanku dhanka horumarka lagu tallaabsaday oo ku aadan waxbarashada waxaan dul istaagnay sida fahamka bulshadu uu u soo kordhayo isla markaana deegaanada miyiga ahi ay u abaabulayaan uguna tabaabashaysanayaan inay furaan iskuulo ay caruurtooda wax ku baraan iyo sidoo kale doorka dowladdu ay ka qaadatay sidii arrintaasi loo dardargeli lahaa waxa aan sidoo kale isla falanqeynay adeegyada dowladda iyo sidoo kale horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee Galmudug ay ku tallaabsatay ugu horeyn Mustafa aan ku soo dhaweeyo barnaamijka ugu horeynna waxa aan weydiiyay waxyaabaha muhiimka u ah horumarinta bulshada runtii horumarku waxa markasta halbeeg looga dhigaa dawladda iyo markaas dadka deegaanka ah tusaale ahaan hadda deegaanada Galmudug oo kala ah 10 sano ka hor iyo maanta waa farq weyn u dhaxeeya oo dhanka horumarka ah hadda waxa soo bidhaamaya nidaam dawladeed sidoo kale nidaam dadku inay adeegyo dawlad helaan laakiin 10 sano ka hor waxa maanta la joogriye ahayd xaqiiqada markii la dhaho marka nidaamka horumarku waxay ku xiran tahay hab fikirka bulshada hab fikirka dawladda iyo sidii bulshadaasi uga qayb qaadato horumarinta nabadda iyo horumarka waa gartay waxaad sheegtay yani mar kastaba haddii dhanka horumar haddii la shaqeeyo in tallaabo hore la sii qaadayo waa gartay maxaa is leedahay marka dhanka dowladnimada marka laga eego waa ay saacidaan ama waa ay ka qayb qaataan horumarka haddii aad ka hadalno waxbarashada iyo adeegyada kale ee amniga iyo security dowladnimada waxyaabaha ay ka shaqeyso oo horumarka saacida isla markaana haddii aan ku dabaqno Galmudug hadda aad joogtay soo dhaw runtii Cabdahar Garaad waa mahadsan tahay horumarka bulshada wuxuu ku xiran yahay horumarka siyaasadeed laga gaaro markastoo xasilooni siyaasadeed deegaanada ka jirto waa markasta horumarka iyo uu gaarayo tusaale ahaan hadda Soomaaliya nidaamka federaalka ay qaadatay oo inta badan nidaamka federaalku wuxuu cadeynayaa in xukunkii la daadajiyo degmooyinkii iyo tuulooyinkii yacni dadku adeegyo helaan tusaale ahaan deegaanada Galmudug oo kala ah maanta way adag tahay inaan la helo ama la waayo deegaan tusaale ahaan 100 kilomitir wax iskool aan ku alin kama jirto Galmudug oo kala dhig kara deegaan kasta maanta waxa laga helayaa in ay jirto meesh wax lagu baran lahaa inay jirto xarun caafimaad oo clinic ah ama MCH at least clinic ah in la heli karo taasina waxa keenay nidaamka la daadajiyo marka aniga waxaan isleeyahay nidaamka dawladnimada oo deegaanadan Soomaaliya siiba Galmudug ka jiro waxa uu qabtaa hadda inuu
kasii ambabaxaya caasimadda galmudug dhuusamareeb oo hadda tuulooyinka dadku u jeesteen hadda maalin kasta meelo waxaan lagu casuumaa programyo dad deegaanka inta is abaabuleen samaysanayaan xarumihii waxbarashada ama xarumo clinic ah wacyigaasi waa wacyi laga soo shaqeeyay ma ahan wax iska yimaaday marka aniga waxaan isleeyahay daadejinta nidaamka dowladeed hadda waxaa xilli fiican baa la maraya waxbarashada markaan ka hadalno Mustafo oo aad adigu soo qaaday miyigii waxaa ka jira waxbarasho bilow ah dadkii reer baadiyaha ayaa is abaabulaya iyaga meelo jeengada dhisanay arrintaasi markaan nabadda ka fiirino laba dhinacba nabadda deegaanka ka jirta inay fikirka keentay iyo waxbarashadu inay iyada ruuxeedu door ku leedahay nabad iyo xasilooni dib u sii shaqeyso dagaaladii iyo aanooyinkii iyo in laga baxo bal arrintaas hadii falaqeena ku sameeyay runtii deegaanada galmudug hadda kacdoon ka socdo kacdoonkaasina ani wax isleeyahay waxaa horboodaya dhalinyaro waxbaratay oo deegaanadaas ka soo jeeda oo dallado leh kuwaasoo ka dhaadhicinaya dadka inay iskool la furtaan dadkii reemiga hadda u biseel ayaguna biseel dhankooda waa ka jira oo qofka reemiga wuxuu ku fakarayaa hadduu wiilkiisii keeno magaalada ugu soo dhow inuu qarashna ku baxayo daltabyana ay jirayso qofka waxa waaye xaaladii noloshii iyo dhaqaale ahaanna uusan isku ka fargaraynin marka laba dhinac biseela ka jiraan dhihi karnaa dhinaca dalladaha oo dadaal farabadan bixiyey iyo wacyiga reer miyiga oo waagi hore qofka reer miyiga wuxuu ku fakari jiray wax kasta in loo qabto laakiin hadda waxay leeyihiin war waxbaa noo bilaabanaya ha naloo keeno hadda aniga deegaanadan galmudug intaa joogay waxaan socdaal ku tegay deegaan la yidhaha ceel barafkaan runtii dadka inkastoo dad reer miyi iska ahaayeen laakiin hab fikirkooda aad u fiicnaa oo hadda waxay ku fakarayeen iskoolka inta dhisteen qurux badan ay haddana xarun klinig ah iyo ceel ay hadda ku fakarayeen oo dhahayeen war waxbaan qabsanaynaayo waxnala wasaaradaha linkiga la ah dowladda galmudug marka runtii waxa isbedelaya waaqicii jiray oo waxay dadku hadda ku soo baraarugeen in aanan la dhihin hay-adihii wax noo qaban jira mahane ay ku marka hore contribution hoose iska aruuriyaan oo hadda deegaanada aan tagno waxyaaba cajiibka maamulaa ka jira tuulo oo qofka gudoomiye ku-xigeen xogayo golo shuura ah oo yacni tusaale ahaan haddaad maanta rabtid inaad deegaan booqatid deegaanada tusaale ahaan guriceel ama balanbal yacni tuuladaad booqanaysid waxaa jira gudoomiye kaa horeeya oo kusoo dhaweynaya oo informationkii iyo xogtii iyo deegaanka iyo waxa ka jira jaalanjiyada fursadaha caqabadaha dhammaan laga hadlaa marka wacyigii bulshada koray dalladihii oo wax weyn sameeyey iyo dowladda galmudug oo iyadana runtii dowladnimadii oo hadda dowladnimada dee waagi hore dowladda xamara laga sugi jira laakiin hadda dowladnimo galmudug liidaha jirto meel kaste maanta deegaanka marka waxaa isbedelay wacyiga bulshada wacyiga dowladnimada iyo dadka reer miyiga oo ayakana isbedelka horumarka iyo muhiimada u leh waxaan rabaa ciyaalka wax la baraayo marka door nuucee ka qaadan karaan in laga gudbo aanadii qabiilka iyo in beelihii heshiiyaan ma is leedahay door noocaasaa imaan kara runtii waxbarashadu waa furaha nabadda iyo horumarka qofka hadduu wax barto at least wuxuu ka nabadgelaya shartiisa uu dadka ka nabadgelinayaa wiilka jooga baadiyaha maanta ee aan waxbarasho helin waxaa u fudud inuu qoray gato geeliisa raaco dagaal qabiilna ka qayb galo kuna dhinto laakiin qofka wax barta maanta lagama dhaadhici karo dagaal qabiil gal ee ku dhimo wuxuu og yahay dagaal qabiil wuxuu yahay wuxuu og yahay inuu aabihii tobanaad saan la isku dili jiray wax faa'iidaa natiijana yacni laga gaarin marka dagaalada qabiilka wuu yarayaa sidoo kale wuxuu ka qayb qaataa horumarka runtii waxyaaba aad aniga farxad geliya wax ka mid ah markaan deegaanadaas galmudug maraya deegaankaas oo ceelbur u dhow waxaa macalinka ahaa nin deegaanka ah oo wuxuu yidhi mararka qaar waxaa dhici karta uu yidhi inaan 60 kilomitir u jirtaa gurceel tusaale ahaan yacni maadaama faamilkayga halkan ay degan yihiin anaa transportka aan waxbarashada u aaday iska dhiibooyo yacni in mushaar la siiyaa diidaysaa waa nafurid meesha ugu dambeedo marka aniga waxaan isleeyahay qofkaas sidoo kale ah oo wiilashaas la dhashay maanta wax baraya runtii fursad iyo dahabi u abuuray tusaale dhanka kale aan ka istaagaa haddii aan ilmahaas wax la barin maanta laba wadiiqay noqonayaan inay dagaalada qabiilka ku dhintaan iyo inay hadhowdii bulshada caqabad horumarka dambe oo galmudug
meesheedii uu iraan ku hayaan oo aysan isbedel horumar ah usan jirin absolutely inuu isbedel horumar uusan keenin taasina waxa ku abuuraysaa caqabad dowladnimada markastoo dadku wax bartaan shaqo la'aan ha jirto dhibaatooyin challenge hoose jiraan laakiin qofka garaadkiisii ayaa dhibaato ayaa faham guud keenaya dadkii garaadkoodii kobcay waa gartay dowladnimada xogaad ka heesaa si gaar ah galmudug wasaaradihii kala duwanaa waa ay shaqeeyaan qaarkood inta badan waa ay shaqeeyaanoo waxbarashadaas haddaan ka hadalnay iyo caafimaadka iyo amnigii oo si gaar ah asaguna shaqeeya meeshaan galmudug aad xog ka heesaa oo laga yaabaa inaad waqti hore aad xog ka haysa joogtid 15 sano ka hor aad joogtid isbedelka aad leedahay dhanka horumarka waa loo aaday haddii ay noqoto kaabayaasha iyo waxyaabaha horumarka keenaya dhaqaalaha inuu maxaa ku muuqdo runtii dowladda galmudug shaqo wacana laga qabtay deegaanadan runtii dadkuna waxaa ka dareemi karnaa isku duubni dowladnimada galmudug waa ogeyn rafaadkii laga soo maray iyo dhibkii laga soo maray laakiin hadda waxaan haysanaa dowlad meel laga qaadi karo meel kale la geey karo runtii muhiimadda aniga waxay ila tahay galmudug kacdoona ka socda oo dhan walba ah runtii galmudug qaybeeda kala duwan sektor kasta ama wasaaradda waxbarashada wasaaradda runtii deegaanada galmudug kacdoona ka jira sektor walba oo waxbarashada iyo caafimaadka dadku waxay fahmayaan inuu horumarku yahay waxbarasho sidoo kale dadku waxay fahmayaan in laga gudbo nidaamka qabiilka oo curyaamiya deegaanada galmudug deegaanada kale Soomaaliya waxa uga duwanaa qabiil oo challenge ugu weyn maalin kasta dagaal qabiil oo faa'iido lahayn ayay lagu dhimanayaa hadda waxaad u qabtaa wasaaradda amniga galmudug iyo hay'adda NISA in ay ka wada shaqeeyaan arrimaha amniga oo arrimaha gudaha iyadana shaqo fiican ay ka qabatay oo deegaanadaas oo dhan markuu qabiil isku diriro in la kala dhexyaadinayo runtii waa shaqo fiican oo shaqadaas odayaal dhaqameedka qabi jiray dhibayna ka mudaya laakiin hadda shaqada dawladeed ayaa lagu kala celinaa طبعا ولينا odayaasha door waa ku leeyihiin haddaba iyaga sharaf qaba absolutely laakiin hadda sektorka aan joogno waxa waaye dawladnimada xoogaa wayna isla shaqeeyaan oo kalma maarmaan oo runtii ayadana muhiim tahay waa dhinacaan marka haddii aan ka hadalno kaabayaasha wadooyina hadda socda eerbooradii iyo dekedii hobyo aad ogtaa bal dhinaca dawladnimada surface-kaasi marka aan u fiirino horumarkii aan ka hadlayno mawduuceen ahaa maxay ka qayb noocee kale ku leeyihiin runtii saameyn weyn ay ku leeyihiin waxayna yani kabayaan horumarka tusaale ahaan haddii maanta deged la helo kaa tusaale at least waxaa ka shaqeyn karaan isleeyahay 1,000 qoys ama 1,000 qof 1,000kaas qof waxaa ku dul nool 3,000 oo qof oo sab ah oo ka hooseeya ah sidoo kale jid haddii la dhiso waxaa fududaanaysaa islaanta waayeelka ee 100 kilomitir inay isbitaal hesho sidoo kale inay hesho adeegyada caafimaadka marka jidadka in la dhiso waxa la yiraahdaa dawladnimada dhan waa surface kooban oo la bixiyo laakiin inta kale shacabka dhista tusaalahan jidadka ceelasha waxyaabaha fundamentalka oo ah nolosha bini'aadamka haddii dawladdu qabato inta kale shacabka qabsanayo shacabka dhusmareeb jidadka maahane dabaqyadan dheer dhistay waa public waa private sectorka marka dawladdu waxa laga rabaa sharci sameyntii iyo waxyaabaha lagama maarmaanka oo magac dawladnimo lagu soo qaadanayo in bulshada looga faa'iideysto taasana horumarka qayb qaadanaysa waa gartay Mustafa waxaad ka mid tahay dadka wax qora dhinaca sektorka qoraalka iyo wax akhriska ayaad ka shaqeysaa galmudug aad joogtay waxaan arkay inaad booqatay meelo badan oo wax lagu akhriyo maktabado iyo meelo cilmi lagu falanqeynayay bal dhinacaas markaan ka hadalno waad ogtahay kacdoonka Soomaaliya oo dhanba laga yaabo 10 sano la soo dhaafay in xogaa maktabadaha iyo bandhigyada ay soo bateen dhowr marna bandhigyada u imaatay galmudug bal galmudug arintaasi isbedel ma jira ma isleedahay dhankaas qoraalka waa loo aaday oo talaabo loo qaaday runtii Cabdiraha waa maasan tahay I think waxaan u maleynaa galmudug markaa imaanayay waa markii saddexaad saddex wajiye kala lahaayeen 2020 meelaan joognay 2020 haddana meelaa la joogaa birina waa laga fiicnaan doonaa inta badan dhanka galmudug waxa aad loogu xama jiray bulsho iska oral society-go qofkii cataa soo wax barta oo kuleeyahay wixii ii soo koob wuxuu u baahan yahay waa qaabkii pastoralismkii oo Greek waayo qofku wax kastaba talo unba ku darsanaya wax walba laakiin hadda waxaad u qabtaa fikirkaas in la bedelay oo maktabadaha iyo meelaha kale xarumaha fikirka inay deegaanada galmudug ku soo badanayaan runtii waxaan booqday iskoolo kala duwan waxaan booqday maktabado
oo magaalo kastoo magaalada hadda Dhuusamareeb kala maktabada jirta inkastoo maktabada official ahayn sidoo kale waxaan booqday xarun cilmi baarista galmudug oo wada hadalada oo deegaanada oo runtii aad fundamental u ah dowladnimada maxaa yeelay xarumaha fikirku waa halka la dowladnimada laga hago waa halka laga ogaa karo xooraanka bulshada waa halka laga shidaal qaado dowladdu ka shidaal qaadato sidoo kale meelaha librariyaduna waa meesha ilbaxnimada ka dhalato yacni awal tii hore qofkan waxa macquula fikrad markaa soo jeedis haddii fikraddaasi aad ka soo horjeesatid inuu kugu colaadiyo kugu dilo laakiin xarumaha fikirka waa ka duwan yihiin adina fikiraa qabtaa anina fikiraa qabaa marka fikirkaasi waxaa loo codaynayaa midkii lisleeyahay caqligu la saaxiib yahay marka runtii deegaanada galmudug hadda dhanka waxbarashada doodaan ka qayb galay wasaaradda waxbarashada maalinta ay qabanaysay runtii graphiska ardada iyo graphiska dadka deegaanada runtii waa laakiin faanoo la fari kama qodno weli waxaa haro oo lama dhihi karo hadda horumar weynaa la gaaray horumar weynaa la gaaray dhinaca dowladda waxaa lagu dhaliilsan yahay dhinacaas marka la joogo qoraalka iyo akhriska waxaad ka qayb gashay bandhigii buugaagta wasaaraddu waxay ballan qaaday sanadka dambe maktabad public library in la furi doono waad ogeed wasiirka ayaa sheegay arrintaasna weli tallaabo looma qaadin dad badan oo aqoon-yahanaha waxaa jira dowladda talooyin u jeediya oo mar badanna sheega dowladdu inaysan talooyinka dadka aqoon-yahanada ay cilmiga aysan qaadan oo aan nidaamka weli aysan si fiican aqoonta ula falgelin ama dowladduba aysan ka shaqayn in dadka aqoon-yahanadaha iyo dadkii la howlgeliyo cilmi baarisya la sameeyo inaan dadaalkaas la bixin arrintaas ma qabtaa maxay kula tahay in dhinacaas dowladdu ay ka gaabiso runtii cabdiraali waa mahadsan tahay dhaliisha qayb dowladdu waa ka leedahay qaybna waa daruufaha soomaaliya ka wada jira tusaale ahaan markii library-ga oo kale laga hadlo muqdisho caasimadii dalka ah public library oo maanta ka jira ma jiro hal library aa jira oo ayadana I think inuu weli maktabadii ayadoo inkastoo maktabadii library laba kala yihiin laakiin haddana magaalo weyn oo caasimada oo 3 milyan ku nool yihiin haddana private inta badan ka shaqeeya aniga waxaan isleeyahay haddii shaqo fiican la qabto oo isku tashi ah oo iskaa wax u qabsaa wax badana la qabsanaa hadda tusaalaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimada ah xarumaha dowladda iskaa wax u qabsaa lagu dhisay hal qof oo maanta dowlad contribution ku lahayd ma jirto dowladdu waxay ahayd meesha dadka hagayso shaqada qabanaysa runtii xilliyadii hore laakiin maanta waxaas waa ka duwan yihiin oo dowladdii inta badan mashaariicdii hay'adaha caalamiga ah iyo dowladda budgetka laga soo qaato ayaa wax lagu qabtaa marka aniga waxaan isleeyahay waa in dowladda galmudug iyo wasaaradda waxbarashada ay sameeyaan program iskaa wax u qabsaa oo xarumaha danta guud ee wasaaradda waxbarashada hoos imaanaya in iskaa wax u qabso shaqaalaha wasaaradda ku dhisaan taas hadday abuurtay fikraddaas wasaaradaha kalena fikraddaas waa la qaadanayaan madaxtooyaduna waa ogoshahay hay-adaha caalamigana waa ku dhiiranayaan inay dadkan wax iska wax u qabsa inay wax la qabtaan dhinacan cilmiga iyo cilmi baarista iyo xataa ku dar waxaa jirta akademiyadii waddanka u qaabilsan af Soomaaliga oo kale horumarintiisa galmudugna dabcan manhajkii kuma jirto dhinacaas xataa afka aqoontiisa waxa loo tahay xilligan digitalkaana si weyn digitalku u saameynayo qoraalkii wixii iska fududaanayaan marka maxaa loo baahan yahay si looga taageero bulshada dhinacaas cilmiga iyo fanka haddii aan iraano ama suugaanta waxaa la xiriira cilmi baarista ruuxeeda dowladnimada ka qayb qaadanaysa tallaabooyin noocay kula tahay in bulshadu iyo aqoon-yahanadu qaadaan ama jaamacaduhu qaadaan ama dowladdu qaado ama wasaaraddu qaado ama cid kaloo la is leedahay tallaabo way qaadi kartaa runtii cabdaara waa mahadsan tahay waxaa jira waxa la yidhaahdo triple B waa public private partner waa inay wada shaqeeyaan adduunkana waa wada shaqeeyaan si sax ah dowlad kaliya wax ma qabato private kaliyana wax ma qabto sector walbo oo tusaale ahaan caafimaadka ama waxbarashada kale ah waa inuu xiriir la leeyahay jaamacadaha waa inuu xiriir la leeyahay iskooladii taasaa hor u kac keenaysa maxaa yeelay dowladnimada dhan annaga waxaan ka faahfaahanahay wasaaradaha inay yihiin not wasaaradaha ma ah privateku waa dowladnimadu qayb ka yahay tusaale ahaan meeshan privateka ah ee kumanaanka arday wax baraysa dowladda waxay ku leedahay abaal weyn oo la rabo in loo mahadceliyo oo dadka shacabka oo iskaa wax u qabsaa marka aniga waxaan isleeyahay dowladda galmudug waxaa ka maqan aan isleeyahay in arrintaas la sameeyo triple B la dhahaa adduunyada dhan waa ka jirta waa public private partner waa inay wada shaqeeyaan dowladda iyo shacabka iyo waa inay si wada jira u shaqeeyaan taasna waxay ka qayb qaadanaysaa horumarka weyn ee higsiga oo dalka gaaray ay wigsanaya siba deegaanada galmudug waa gartay qeybaha dambe aan isla soo gaarnay barnaamijkeenan horumarinta nabadda
barnaamijkeena horumarinta nabadda Mustafa waxaan rabaa bal nabadda iyo horumarkan aan diiradda saaraynay ugu dambeyn waxaan rabaa ganacsiga iyo dhinacaas hal mar haddii aan fiirino waxyaabaha ugu muhiimsan maadaama waxbarashada iyo ka soo hadalnay kaabayaasha galmudug horumar ganacsi ah oo hadda aad is leedahay maxaa ku tilmaami kartaa haddii ay tahay real estate-ka dhulka waxyaaba aad aragtay intaad joogto runtii galmudug waa horumar fiican ka socda markii la fiiriyo laakiin weli fariifaan oo lefana kama qodno wax badan ugu cusub oo hadda adigu waa ka maqneed waxyaaba aad aragtay runtii waxyaaba ay soo jiita wax ka mid ah warshado deegaanada galmudug kama jiri jirin hadda waxay u qabtaa warshadihii inay dib u soo laabanayaan warshadaha warshado waaweyn ma Soomaaliya dhan warshado waaweyn laakiin waa manufacturers warshadaha yararka ah oo waxyaabaha plastic soo saaro joodarayaasha soo saaro biyaha soo saaro waxyaabo basic u ah nolosha oo waagi hore dib loogu mudo jiray in xamar loo doonto ama boosaaso loo doonto hadda dadku waxay fahmayaan sidoo kale dadku waxyaabo cajiibka ah aan ku ammaan wax kamid ah dhanka beeraha xoogga beeraha saaran dadku waxaad u qabtaa hadda magaalada Dhuusamareeb kala qudaarta lagu isticmaalo waxa macquul ah inaysan xooggeeda Dhuusamareeb laga soo baray inta badan hadda fikradaasina waa fikradaha ama casriyiinta beeraha casriga adduunyada ah oo dad jaamacado ka soo baxay deegaanada galmudug ama dibadda ka soo baxay fikradaha hal abuur ay imaanay because dhulkeenu waa dhul iska weyn biyo waa fududeed laakiin fikradda bulshadeena la qaatiyay ahayd dhulka dhagax waayo wax kama soo baxaan marka tijaabooyin kale marka horumarka aan ku arkay waa horumarka beeraha iyo horumarka dhismayaasha runtii galmudug dhismayaal casri ah oo la jaan qaadaya dunida horumarta ayaa ka socdo hoteelo waaweyn maalin kasta la daafuray maanta ugu dambeysay waxaan ka qayb galay Ayman oo runtii xarun casri ah yani wax macquul 5 sano ka hor Dhuusamareeb in yani meelaha shah lagu cabi jiray iska meel iska tuulo ah laakiin hadda meel qurux badan oo sida hotel Jazeera ah dadka shah ku cabay marka horumar xawaare dheer la jiray ugu dambeyn fariintaada ku aadan bulshada galmudug barnaamijkan dhageysanaysa raadiyaha Daardheer oo laga dhageysto deegaanada miyiga ah magaalada iyo FM-ka iyo sidoo kale baraha bulshadaba fariintaada halkan marsiinay sidii maadaama aad qof aqoon-yahan barnaamijkeena toddobaadka marti aad ku tahay aad isleedahay bulshada ha kaa gaarto maxay runtii bulshada fariinta u gudbinayo waxa waaye dadkeenu dawladnimada waxay ka aaminsan yihiin iyo adduunyada dawladnimada wax laga aaminsan yahay waa kaafiga kala dheeri tusaale ahaan dadkeenu waagi hore dawladnimada ilaa haddana ay ka aaminsan yihiin wax walba in dawladda loo khaas faraysto ma aha waa inaad adigu marka hore ninka qada haystaa quraacaysa qada loogu daraa adduunka markaad waxaystida wax lagu koriyo ha ka fakirin inaad tiraahdo maanta hay'ada wax ii qabato NGO wax ii qabanay adigu wax uun bilaaw markaad wax bilaabatid ayay dawladdu ku kaabaysaa oo yani tayada la ogaanaysaa laakiin markasta waliga maskaxda ha ku galin waxba lagu qabanaa adigu maxaa qaban kartaa sidoo kale ku fakir dalkaaga maxaa u qaban kartaa oo tusaalahan deegaanada galmudug waxyaabo ilaahay uga maneeyay wax kamid ah amni inta badan amni waa laakiin dadku amni kama faa'iideysan dhalinyaradu inta badan fadhi ku dirir iyo siyaasad iyo wax aan noloshooda la jaan qaadin laakiin inay amnigooda iyo fikirkooda iyo xorriyadda heesaan inay ka faa'iideystaan naftayda ku jecelo rajaan nusqaamayn kuguna wilaysid nabadi معاني نعودوني نبضي معاني نعودوني نقايا برواقة نمحلق وقبوباي الناصر مانو وحقاق aqoon-yahan Mustafa Saban Sabriye oo barnaamijka horumarinta nabadda toddobaadkan marti noogu ah ayuu ahaa dhageystayaal intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijkeena oo aynu ku falanqeynayna toddobaadkan horumarka iyo doorka ay nabaddu ka qaadato guud ahaan deegaanada galmudug iyo dalka anigoo Cabdihar Garaada ayaa barnaamijkeena la socodsiinayay Liibaan Maxamed Cabdi ayaa ii farsameynayay nabadgelyo ku jecelo rajaan nusqaamayn kuguna wilaysid nabadi macaani nacawdooni nabadi macaani nacawdooni
lagu qabo